عراديو دولكيسيو عيدا لغو هليو وعدك شعبك قيمة شرعيقنا عيسيو ليسان عبشك إيمان دمركيو عرورتيو عريانا ذا شابانيو عاوي روحا kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal asxaabteena cusub asxaabta ka soo horeysay bulshaweynta Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan bahda YouTube-leyda iyo social media-yasha kale dhammaantiin walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka dib daawadayaal soo dhawaada maanta waxaan idin hayaa sheeko gaaban sheekadan waxay ku saabsan tahay sawir laba maalmood ka hor aan soo dhigay dhinaca community-ga sawirkaasi oo ah arday looxa quraan ku dhigato oo markaasi quraan ka baxayso macallinkan hor fadhiyo ayaan soo dhigay kadib dad badan ayaa aragtidooda ka dhiibtay maasha Allah ama waxay ka xasuustaan xilligooda nala wadaagay waxaan rabaa marka xasuusta dadkaasi nala wadaageen inaan idin la wadaago walaalaha qaar dhinaca community-ga inay arkin ayaa dhici karto muuqaalka idin soo gudbiyo adinkana inta dhinaca community-ga aragti ka dhiibanin halkan aragtidiina ka dhiibatiin ama waxaad ka xasuusatiin xilliga aad quraan dhigan jirtay haddii aad soo martay looxa quraan lagu dhigto ama geed inta la qoro quraan lagu dhigto oo looxa loo yaqaano sawirka markaan soo dhigay qoraal ayaan soo raaciyay aniga waxaan ka xasuusta ayaan soo raaciyay waxaan soo qoray haddii aad soo martay muuqaalkan laag saar waxaad ka xasuusatid xilligaaga comment noogu reeb ani waxaan xasuustaa looxa dhinaca aniga ixiga aayadaha igu adag ama meelaha igu adag ku qoran jiray dhinaca macallinka xiga ma aan dhinaca aniga ixiga ayaan far la arkay far yar ku qoran jiray marka xaaladdu xumaato markaas halkaasaan ka fiirin jiray marka taasi waa runtii waxa aniga aan soo maray aan ka xasuusto haddii aan guda galo walaalaha kale waxay nala wadaageen ama ay runtii ka xasuustaan xilligooda hibo xuseen waxay tiri alxamdulillaah aniga fursad quruxda badan si wacan ayaan uga faa'iidaystay wallaahi ilaahay ha u naxariisto macallinkii alifka i bilaabay macallimiinta ka dambeysay allah xafido ayay tiri aamin ayaan leenahay faadimo sahra xaashi waxay tiri maasha allah xasuus aan caadi ahayn ilaahay u naxariiso macallinkaygii qabrigiisana ha u nuursho ayay tiri damca macallinkeed uu geeriyooday allah u naxariisto jamiilo cali waxay tiri maasha allah waa xasuus looxa in aan dhaqo oo aan caddeeyo kadibna cagaar mariyo si qurux badan ayay tiri maasha allah waa la wada xasuustaa sax xaliimo cumar waxay tiri maasha allah macallinkeen macallinkiis allow kaale baanu dhihi jiray waayo ayay tiri maasha allah adeer xirsi wuxuu yidhi aniga waan xasuustaa akhlaaq dumar waxay tiri allahana jeclaysiiyo qur'aanka ayay tiri maasha allah kadib waxay tiri waxaan samayn jiray marka aan ka baxayo gabar aan saaxiibanahay ayaa waxaan leeyahay kitaabka ii qabo waan ka fiirsanaa mise gadaashayda soo istaag ii sheeg mararka qaar ilmaha ayaan ku dhex dhuuman jiray aayadaha aan aqaano ayaa macallinka maqashiin jiray maasha allah wallaahi caadi maaha aayadaha aan aqaano ayaa macallinka maqashiin jiray tusaale bilowga iyo dhammaadka mararka qaar ma ka baxday ayuu macallinkii dhihi jiray waa maalintii ceebta badneed haa ayaan dhahay kaale hadda ka bax ayaa laygu dhahay walla baxaraa ku jirta baxar kaale ka bax ayaa laygu dhahay mana aqaanin casharka waa la iqabsaday ul xanuun leh weeye ul xanuun leh ayay tiri damcan waa la garaacay ardayda way aamuseen ayay tiri oo intayda darteed maasha allah akhlaaq allah ku xafido runtii exactly ardayda adiga camal ayaa ardaydeennana ku jiri jirta meel walba ardaydu waa uun runtii isku mid
wiil noocaas ayaa jiri jiray oo dhuuman jiray xilliga qur'aan laga baxay uu dhuuman jiray sida aad sheegtay ayuu macallinka maqashin jiray meeluhu garanaayo kor u akhrin jiray meelaha kalena hoos u akhrin jiray waa runtii xasuus aad iyo aad u wanaagsan maasha allah thank you runtii waan qoslay qalanjo cadde waxay tiri xasuus aad u wacan ayaan ka haystaa maasha allah ayay tiri rabbi haddaayo macallinkii soo qur'aan baray asxaabey macallinkii qur'aan soo baray ayaa xanuunsan igu soo duceeya ayay tiri caafimaad degdega allah siiyo aamiin ayaanu leenahay inta xanuunsan allah caafiyo inta dhimatana allah u naxariisto leyla kukiin official waxay tiri shukran xasuus wacan maasha allah thank you quruxsan waxay tiri maasha allah wallaahi aad baan u xasuustaa qaabkan oo kale ayay tiri hooyo macaan waxay tiri waa soo maray walle waa soo maray ayay tiri qadra xalays waxay tiri aniga casharkayga ayaa loox kale ku qori jiray kadibna macallinka gadaashiisa ayaan ku tiirin jiray halkaas ayaan ka fiirsan jiray igu duceeya macallinkay allah yarxam ayay tiri allah u naxariisto macallinkeeda u geeriyooday allah u naxariisto ayaan leenahay faadimahaas waxay tiri maasha allah xasuus soomaaliya hibo xuseen waxay tiri alxamdulilah aniga fursadda quruxda badan si wacan ayaan uga faa'iidaystay wallaahi ilaahay ha u naxariisto macallinkii alifka i bilaabay macallimiinta ka dambaysay allaha xafido dhammaantood aamiin ayaanu leenahay faadimo xasan waxay tiri maasha allah waa xasuus aad u wanaagsan aadna xasuusisay taankii ayay tiri adaa mudan faadimo ayaan leenahay amino cali waxay tiri macallinkaygii sheekh cali daahir ilaah u naxariisto macallinkeeda uu geeriyooday allah u naxariisto maslax axmed wuxuu yidhi maasha allah si fiican baan u xasuustaa faadimo sahraxaash waxay tiri maasha allah xasuus aan caadi ahayn ilaah u naxariisto macallinkaygii qabrigiisana ha u nuursho ayay tiri aamiin ayaanu leenahay umu sheekh cabdalla akhyaar umu sheekh cabdalla akhyaar waxay tiri way qosashay marka ugu horeyso xasuus ayay tiri maasha allah tabaaraka allah allow macallimiinteenna u naxariiso ayay tiri aamiin ayaanu leenahay halkan ayay ka bilaabdo qisadeeda ama waxay ka xasuusato waxay tiri anigoo dhib badan waxyaalo badan aan la koobi karin baan ka soo maray inkastoo hadda soomaaliya aan arag meel loox lagu dhigto inta aan soo maray balse xaqiiqadii wixii looxa lagu barto baa maskaxda ka bixin aniga laba haddaan ka soo qaato mid marka ay casharku igu adag tahay carruurta ka baxaya isku dhex qarin jiray markii la dhaho ka soo bax waxaan odhan jiray waan ka baxay marna waa laiga qallayn jiray marna hadda ka soo bax ayaa la odhan jiray oo haddaan garan waayo washamsi baa laygu qaadi jiray allaahu akbar midda kalena waan isku yara dhoweyn oo waxaan samayn jiray intaan looxa ku qoro casharka baan meel fog dhigi jiray halkaas baan hor ka akhrin jiray ardaygii isheego waan ku garaacayaa markii la baxo baan odhan jiray maasha allah xataa hadday iga weyn yihiin sababtoo ah waan dagaal badnaa wallaahi aad baad iga qoslisay maasha allahu tabaaraka allah xasuus aad ugu weyn weeye dugsiga yaraantayda hadda xitaa waan soo arkay macallimiintayda mid ka mid ah 2017 maasha allahu allow caafimaad taama cimri dheer iyo cibaado suuban sii iyaga iyo
waalidiintoodaba uguna bishaaree janatulfirdows ayay tiri aamin ayaanu leenahay annagana runtii waa sheeko aad iyo aad u qosol badan sax waaye aniga ayada waan isku dhownahay ayada looxay ku qoran jirtay meel fog ayay dhigan jirtay oo ka akhrin jirtay aniga looxa aan hayo dhinaca casharka laga baxaayo dhinacan uu ku qoran yahay dhinacan aan aniga wax yaryar ku qoran jiray maasha allah waa runtii sheeko aad iyo aad u qosol badan waad naga qososhiisay maasha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay umu sheekh zaynab yuusuf waxay tiri waayo waxaan ka xasuustaa wiil iyo gabar baan isku loox ahayn maalinkii dambe ani iyo wiilkiibaa looxii isu qabsannay khabiirkiibaa iiga hiiliyey bannaankan u istaagay kala reebta aniga iyo khabiirkii ciyaalnimo waa cudur laga koray madiina masaajidka xaji maamow macallin maxamuud ayay tiri maasha allah aad iyo aad baad u mahadsantahay zaynab waxay u muuqataa qof dagaal badan inay tahay kolley hadda waa laga koray waxaasi run waaye saa sheegta waaye ciyaalnimo waa cudur laga koray waa runta maasha allah calanjacdo waxay tiri xasuus aad u wacan ayaan ka haystaa maasha allah rabbi haddaayo macallinkii ee soo qur'aan baray asxaabay macallinkii qur'aan soo baray ayaa la ii sheegay inuu xanuunsanaa fadlan igu soo duceeya ayay tiri ilaahay caafimaad deg deg ha siiyo xanuunka ilaahay ka dulqaado qalanjacado adigana aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalahaasi dhammaantood aragtidooda ka dhiibtay halkan ayaan idinka salaamayaa inta aan aragtidooda halkan ka akhriyay kulligiin waa salaamantihiin aad iyo aadna waan idinka mahad celinayaa si wanaagsan oo qalbi furan aad nala wadaagteen waxaad soo marteen ama waxaad ka xasuusateen dugsiga xilligiinna maasha allah waa runtii sheeko aad iyo aad u qurux badan in la isxasuusiyo waxyaalo la soo maray weliba qur'aanka qaabka lagu dhigan jiray oo waagii hore jiri jiray looxa lagu dhigan jiray oo hadda runtii adag tahay si loo helo inkastoo meelaha qaar weli laga dhiganayo inaan isxasuusino oo laga sheekeeyo runtii maskaxda bani aadan dib ayay u fikiraysaa xasuus ayuu qofku galayaa marka maasha allah inaan arrimo noocan isxasuusino aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waad mahadsantihin walaalayaal walaalaha kale oo runtii dhinaca communitiga arkinna maxaad ka xasuusataa xilligaaga dugsiga haddii aad soo martay looxa kama hadlaayo dadka warqadasu ku soo qortay kama hadlaayo sabuuradda dadka loogu soo qoray waxaan ka hadlayaa looxa dadka soo maray maxaad ka xasuusataa maxaa kugu dhib badnaa maxaana kugu faraxdi badnaa maxay tahay waxaad marna iloobi karin aad iyo aad baad mahadsantay walaalayaal su-aashaasi waxay miiska u saaran tahay walaalaha daawan doona muuqaalkan oo aragtidiisa ka dhiibanin ama aragtidooda ka dhiibanin dhinaca communitiga waad mahadsan tihiin intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa xasuusta dugsiga qur'aanka looxa lagu dhigto fadlan haddaad ku cusubtaa channelka qays iyo raxmaa subscribe taabo gambaleelkana furo saad u hesho notification taniyo kulantadeena dambe walaalayaal waxaan idin rajeynayaa nabad iyo nolol assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh